dhooqada Soomaaliya Sheekh Cabdiraxmaan waan ku jecelnahay iska daa aniga mid baa inay sheegay walaalayo qofka ijecelayno ha ijecelaanin anigu manaag baan ku noqonayaa maxay jecelaanaysaa limaada tuhibuni anu waxaan aad ula yaabaa hebel waan jecelahay hebelna waan nacaa caalamul afkaar la isma jeclaado waa la isqanciyaa caalamul afkaar caatifa male aniga waan ku jecelahay ma isguursanayna waan ku jecelahay ma aabiyo yaan isku dhahay waan ku jecelahay maxay limaada tuhibuni aniga ixtiraam ana waan ku ixtiraami aniga iqadir ana waan ku qadiriye aniga muhiimadeeda arag ana muhiimadeeda arkiye inta wixii ka sokeeya anu waa soo dhaafay caalamul awaatif lastu minhu walaysa minni caalamka awaatifta anu kamid leeyahay hatta hadaad maanta oo dhan ijeclaatid waxba ima biirnaysid hadaad in nacibtahayna waxba iga maridaysid saabqa Cabdiraxmaan Bashiir ila yawm alqiyamah waa wadaad ku rabaysmay wadaadnimo waxay tahay macallin quraan number 1 arintaas aad u qortaya number 2 waa wadaad salafi ah salafi muxuu yahay salafi wuxuu yahay aqeedada ay aaminsan yihiin waxay dagaal kula jiraan suufiyada waxay dagaal kula jiraan dadka aan kitaabka isku xukumin iyo sunnaha nabiga waxay dagaal kula jiraan barigii hore taas loo yaqaanay salafiyadu waxay dagaal kula jiraan waxa la yiraahdo in alwala wal bara waka usuushoodu alwala wal bara iyad heshiis la tahay iyad ka bari noqonaysaa oo gaal iyo wixii la socda marka salafinimadu waa sida okay fikirka salafiga ayuu soo baray walina wuu yahay laakiin fikirka salafiga wuu tatawuraa uu evoluyaa isma taagin labo